yiri bari baa nin Soomaaliyeed oo ciroolo ah wuxuu lahaa 100 halaad oo geel ah 100kii halaad ee geel ahaa buu soo arooriyay wuxuuna keenay ceel laba malka ah dhexdeed ku yaala oo meel tog ah ku yaala odagii oo geeli waraabinaya ayaa wuxuu arkay col geed agtiisa gartu taraartay oo qacda iyo bafta isku haya wiilu dhalay buu weydiiyay oo ku yiri war nimanku maxay isku hayaan garan maynee haddii alla idmo kolkaynu geela waraabino ayaynu ka wardooni doonaa ayuu wiilkii ugu jawaabay kolkuu odagii geeli biyihii ka waraabiyay oo uu geelii hogtay ayuu isiri debanin baa tahay bal raggu waxa uu isku hayo hadda mar dhugo odagii kolkuu golihii tegay wuxuu la kulmay guddi u dhageysanaysa iyo laba nin oo garta istaraarsiinaya oo dacwad iyo doodu iyaga dhex marayso haddii uu dhageystayna nin waliba wuxuu leeyahay geela aniga leh waana kii isagu uu waraabinayay aad buu ula yaabay mar dambe uu dhageystay kor iyo hoosba wuu eegay mise nin waliba wuxuu leeyahay geela aniga ayaa iska leh odagii way ishayn waayay oo intuu booday oo guddidii ku jeestayba wuxuu yiri war nimanku geela ay isku hayaan aad gar ugu garnaqasaan makan aan anigu hadeer waraabinayayba tabeetana waxa la yiri waxa uu odagii ku jawaabay war geela aniga leh oo meesha keenay guddidii garta naqasay ma ay oranin labadii nin war geela isku haysaan waa kan ninkii lahaayay watay intay odagii fiiriyeen oo la yaabeen bay waxay yiraahdeen adeer rag baa is hayaanu kala saaranaaye mid saddexaad aan loo fadhiin baad la timiye waxaad yeelaysaa nasug adigu barintaan raggan kala saarano odagii mar labaad buu ku celiyay oo wuxuu yiri war geela aniga ayaa iska leh waxa lagu yiri hadeerow ilaahay ma taqaana rag baa hore jiqisugu ahaaye mid saddexaad aan nagu dul furine rag baa is hayaanu kala saaranaaye naga fadhiiso oo naga joog odagii mar wuxuu la yaabay labadii nin marna wuxuu la yaabay guddida garta oo qaadaysa mar haddii la dhageysan waaday tani waxay keentay bal arrintu dib waxay ka noqoto inuu yar sugo oo bal hadda sii dhowro guddidiina nimankiibay dib ugu noqotay oo waxay ku tidhi bal nin walowba geela sidaa aad ku yeelatay hadda war noogu celi labada nin ay haya nin waxaa la yidhaahdaa magaciisa cadib ninna waxaa la yidhaahdaa colaad cadib baa hadlay oo wuxuu yidhi war miyadii niman islaam ahayn war bal geela si fiican u eega war bal geela sawriciisa tilmaansada war geelan iyo kan xeradayada jooga miyaanay isu ekayn geelan aan anigu sheeganayo awrka dhalay iyo geelayaga kale awrka dhalay ayaa awr wada dhalayoo labada geel waa walaalo halkaa markuu doodii mariyey isla guddidii colaad bay weydiisay oo tidhi war colaadu adigu geela maxaad ku sheeganaysaa wuxuuna yidhi war niman yahow indha dhagaysta haddaad niman islaama tihiin arrinku wuu idin dhadhami doonaa geelanna xataa markii ninkii hore ee dhaqay uu joogay weligayo isku xeraanu ahayn ceella waa ka wada cabbi jirnay intaanu geel xor wada noqonnay lama tirin karo intaanu ceel ka wada cabnayna lama tirin karo anigaa aqaana oo geela taasi waa hebla oo taasi waa hebla oo taasi waa hebla oo taasaa ka badisa oo taasaa ka badisa sidaa darteed baan geela u yeeshay buu guddidii labadii nin ma aanay odhanin war waxaad ku hadlasaan wax geel lagu mulkiyi karo ma aha wax kale noo sheega halkay guddidii taa ka odhan lahayd mid kale ay u baydhownin waxay ku tidhi bal nin walowba markhaatigaagii hadda keenso inaad sidaa aad sheegayso ay arrintu tahay labadii nin waliba mar buu halkiisii ka qaadqaatay isla labadubana waxay u dhaqaaqeen dhinacii geelu hooganayay ee ceelka ahayd nin walibana wuxuu soo kaxaystay wiil yar oo odayga geela lihi uu dhalay labada wiil cadib wuxuu soo kaxaystay wiil la yidhaahda faarax mooge oo odaygu dhalay colaadna wuxuu soo kaxaystay wiilkii kaa ka yaraa oo la odhan jiray cali magan waa hagaag nin walibana wuxuu wiilkii yaraa ku yidhi adeer golahaynu teganaaye markaynu golaha tagno geelaa lagu weydiine haddii lagu dhahdo geelayaa leh waxaad tidhaahdaa annagaa leh miyay hawl kugu haysaa dabeetana wiil waliba wuxuu yidhi maya dee annagaa leh waa la soo tegey nin waliba golihii buu markiisa wiilkii soo taagay wiilashii baana la weydiiyey geela cidda iska lahoo waxaa la yidhi guddidii waxay tidhi war faarax moogow geelayaa leh annagaa leh buu faarax mooga yidhi cadibna wuxuu ka daba yidhi waa runtiisoo annagaa leh
guddidii faarax mooga ma weydiin oo may odhan geela idinku inaad leedihiin waa naqaanaaye ninkan daba taagani ma kula leeyahay sidaa mid la mida ayaa calimagana la weydiiyey oo la yidhi war geela calimagan oo yaa leh dabeetana wuxuu yidhi annagaa leh sidaas si leeg baana colaad uga daba hadlay oo yidhi waa runtiisoo annagaa leh guddidu may odhan war cali ow geela colaad ma kula leeyahay waa Cajabaley halkaa markay arrintii martay guddidii waxay labadii nin ku tidhi idin dhegaysanay doodiinnii ee waxbaanu idinkala odhan doonaaye intaanaan judgmentka ridin baanu u baxanaa arrintee ninowna halkaa ninka kale ha u dhaafin guddidiina meel gaara oo saddexaad ayay u baxday kolkuu ninkii geela lahaa ee isaga magaciisa la odhan jiray ciid uu arkay guddidii oo meel gaara u baxday ayuu nimankii guddida lahaa abbaaray oo wuxuu ku yidhi war niman yahow sidee bay wax idinka yihiin ma geela anigu aan iska leeyahay ayaad ugu garnaqasaan niman Soomaaliyeed oo kale ninka guddida chairmanka u ah magaciisa waxaa la yidhahdaa Suldaan Celiye shawodaya geela lihi wax badan buusan ogeyne Suldaan Celiye gabadhiisa curad waxaa qaba ninka la yidhaahdo Cadib colaadna min yaraa uga doonan u mehersan asaanu la guri gelin waa hagaag suldaankii kolkuu arkay inay aruntii isaga cagaha soo gelinayso guddidii buu la hadlo wuxuu ku yidhi war bal anta xaalad mastuur baan ku dhammaynayaa bal in yar iga war dhowra dabeetana wuxuu u kacay xaggii labada nin ee geela isku haystay wuxuu ku horreeyey Cadib oo wuxuu ku yidhi war Cadibow maxaad ninka geeliisa ugu haysataa Cadibna wuxuu ku jawaabay suldaan laba arrimood haddaad isku daydo waxay ila tahay waxayna kala gaadha adaa mas-uul ka noqonaya dabeetana wuxuu yidhi oo waa maxay wuxuu ku yidhi geela haddaad colaad baale tidhaahdo aroortii baan kaa guuri gabadhaadana waan furi 10 carruur ee xoolaha kuu raacay aan dhalayna waan kaa kaxaysan doonaa ee ku biyaca waa qodobka labaade ninka ku ag fadhiya ee geedka idinku yimi ee geela leh haddaad fursad siiso oo aad kaba hadal siiso oo aad hadalkiisa dhegaysato intaasi intay dhacdo baan weliba inaan kula dagaalamo kuugu daraya suldaankii wuu yaabay wuxuuna u dhaqaaqay dhinacii colaad buu u tagay wuxuu yidhi war colaadow adigu ninka geeliisa maxaad ugu haysataa colaad wuxuu yidhi Suldaan Celiye way dhegayso waxaad doonaysaa inaad iga eexato waana ogahay inuu ninka la yidhaahdo Cadib gabadhaada curad qabo oo dana aad ku wada jirtaan haddii aad isku daydo geela inaad Cadib u xukunto waxaad ogaataa gabadhayda warqadeedii inaad isiinayso waxaan kaloo kuu sheegayaa ninka agtaada fadhiya ee geela leh haddii aad fursad siiso oo aad waraysato wixii ina kala raaca adiga ka sheekayn doona waxba kaama gelin adiga ninka annaga carruurtiisa abti u aho oo daan ku wada jiri jirayo wixii nagu kala siya annaga ayaa dhammaysan doona ee adiga kuuma taalle ha waraysan ayuu ku jawaabay suldaankii wuu iska soo noqday labada ninba waxay ka siman yihiin ninka geela leh ee meesha fadhiya inaan wax fursada la siinin suldaankii wuu soo noqday dabeetana ninkii geela lahaa baa la yidhi war noo faqdaa kolkii suldaankii u warramay guddidii labay u kala jabtay oo waxay yidhaahdeen haddii uu Cadib suldaanka ka guuro gabadhiisana furo carruurta xoolaha u raacda ka kaxaysto yaa ciidan u noqon doona waxaynu kaloo isweydiinanaa oo haddaa ma min yara la'aanba suldaanka la dhigaya see arrintu noqonaysaa waxay doodaanba guddoon wuxuu noqday in laba arrimood la soo saaro kow ninka geela leh in loo sheego geela inaan la dariirin isla markaana talabaad oo ah arrintaasna inaanu dib u dhigno oo waqti dambe haddii alla idmo aanu annagu wax ka nidhaahno oo aanu dib u eegi doono inoo taallo idiguna halkaa iska fadhido ninkii geela lahaa arrintaa judgmentka waa u cuntami waaye waxaaba ugu daraatay geela dhanna ha u dareerin waxaa kaloo maqlay geela ma dareerin kartid labadii nina geela isku haysado labadii malka uu ka bixi lahaa ee midii galbeedka xigtiya tii bariga ayaa ninba midiiska taagay ilan geelu meel toga oo dixa ayuu hoganayaa ninkii ciid ahaa ee geela lahaa wuu xanaaqay oo wuxuu yidhi mugga dagaal baa kula gudboon markii uu eegayna wuxuu is yidhi dhinaca geelu ka soo arooray oo aftinta ahayd oo cawska lahayd ninka xiga ninkaas bal aad beegtid wixii dhacayaaba ha dhaceene wuxuusan ogeyn labada ninba inay cadow u wada yihiinoo kolkuu ninkii colaad is yidhi beeg ayaa intuu Cadib soo orday dhegta dabadeeda ku dhuftay halka colaadna uu wejiga ka calaamadiyey ninkii dhinac buu u dhacay
geela lahaa ee ciid la odhan jiray dabeetana markuu arkay labada nin inay isugu tegayaan ayuu dhinac isaga luudayoo buur yaroo halkana intuu dusheeda fadhiistay baytala waxay kaga ekaatay 30 halaad ka badan fadhiisan maayaane fursad waxaa ku ah inay labada nin isdilaan haddii aanay labada nin isdilin meel kalaad ka dhaqdhaqaaqdo ma joogtid fursadaadu waa labada nin oo isdila halkaa markay arrintii maraysay ayaa ummadii deegaanku wax iska weydiisay kolkay wax iska weydiisay waxa ila tahay gardarro in badan baa bini aadamku arkay oo kuma cusba in la gardaroodo iyo gardarooyinka noocyadeedaba way yaqaanaan waxayse la yaabeen ninkii geela lahaaye isagoo di xoganaya buurta korkeedii caalwaaga iska fadhiistay iyo waxa uu ku maqan yahay iyo waxa uu ka fekerayo markii dadkii intaa isweydiiyey nin la odhan jiray caarshe ayaa faalla ka bixiyey faallada caarshi ka bixiyeyna tixda gabayga ah qaybteeda dambe ayaa si fiican aynu ugu tegi doonaa haddii ilaahay idmo haddanse aan tirino tixdii Cajabaley ee gabayga ahayd gardaradii Cajabaley haddaan cid uga sheekeeyo canda kibirtay jeer bay libaax u odekaataaye mar haddaad la cawlaato way caga juglaysaa beri laba colaytamo xaq daran cud nin leh haysto waa ciroola geel jire ninkay culus ka sheegteen intuu ceelka geeyo biyaha ka okanaysiiyey colka geedka goortuu arkay iyo cawshi miranaysay doodii cirkaa gaadhay ee laysu celinayay markii ay caddaatay duqii la Cajabee yaabay carruurtiisa loo maragashaday cayntii lagu haystay codkii iyo warbixintuu la kacay loo cagdhigi waayo codka iyo warbixintu loo cagdhigi waayo catawgiisa odaygii la diid cayn kastay tahay guddi catawgiisa odaygii la diid cayn kastay tahay guddi caamuraa kaaga daran colad isaysaane guddi caamuraa kaaga daran colad isaysaane garcadaalad weydaay markay celiyo sii eeday cadhadirir wadaadkii rag waa la iska celiyaaye cadibna nabar dambeed buu noqday cadhadirir wadaadkii rag waa la iska celiyaaye cadibna nabar dambeed noqoy markuu cadhadirir wadaadkii rag waa la iska celiyaaye cadib nabar dambeed noqoy markuu yidhi colaad beeg cashar baaba loo dhigay kale waan celi isweydiin wuxuu caarshe faalladii ku yidhi waa Cajabaley cusri iyo fudayd guri adduun waa cidhbays xiga cusri iyo fudayd guri addiin waa cusri iyo fudayd guri adduun waa cidhbays xiga ee curadnimadu waa maalmahay kuu camirantaye mar hadday cakiranto uu waqtigu kuu cilada yeesho wiil kastoo caqli leh maalin bay tala ka ceedhnaane intay cadawye leedahay fursadi waa cidhiidh adag caadileeba mooye markay ciirsi kala weydo caloolyada ninkeedii markay cayna qaban weydo sida caw la ganay buu waqii u ciddi jiidaaye cusrigiiyo nin ragii waa og yahay caataduu qaba ee warmowgiyo cabdow nacase way wada canaantaane caydana wuxuu u yahay awr hayina aan caraatamin ciidna wuxuu u koray buurta waa camal daraaddeeda jeray labada coomir isdilaan caad u bixi waaye carcartiisu waa galabta uu midi carraabaaye cagta iyo rakaabkaoo isgalaa buuciyoonsigu iyo cabirkiisu waa kaama foga geel cadceedsaday daawadayaal